shirka guddiga horumarinta gobolka oo gudoomiyaha gobolku gudoominayay maanta waxaa lagaga wada hadlay 3 qodob oo aad iyo aad muhiim ah. qodobkooda wuxuu ahaa wacyigelinta isdiiwaangelinta dadka in lagu wacyigeliyo degmooyinka tuulooyinka miyi iyo magaalada dadka in la wacyigeliyo oo lagu wacyigeliyo dadku in isdiiwaangeliyaan oo gobolka mudug deegaamadiisa oo dhan doorashada dadka hadhow codbixiyaasha noqonaya in isdiiwaangeliyaan oo aad iyo aad dadka loo abaabulo oo isku diiwaangeliyaan muhiimadda ay leedahay waayo waa xaquuq qof walba oo muwaadin leeyahay inuu isdiiwaangeliyo. qodobkaasna aad iyo aad baa la isku afgartay in guud ahaan degmooyinka oo dhan guddiyo kala duwan loo diro isla markaana dadka la wacyigeliyo oo lagu wacyigeliyo inay isdiiwaangeliyaan. qodobka kale wuxuu ahaa arrinta ammaanka in laga wada shaqeeyo oo laamaha dawladda iyo shacabka intuba iska kaashadaan oo lala diriro qabyaaladda iyo daroogada kala duwan oo dadka darogaystayaasha ay wadaan oo amniga khalkhal gelisa in lala diriro lana wacyigeliyo dadka laftigiisa oo culummada iyo odayaasha iyo maamulka mas'uuliyiinta kala duwan intuba ay ka qayb galaan sidii dadka daroogada ka bixisura iyo kuwa ammaanka khalkhal gelinaya ama qabyaalad ha noqoto ama darooga ha noqoto ama dhul ha noqoto intaba in la iska wacyigeliyo oo ammaanka laga wada shaqeeyo oo haddaan ammaan la helin horumar ma jirayo nabadgelyana ma jiro saddex mar ma jirayo. qodobkaasna aad iyo aad baa la isku afgartay laamaha ammaanka iyo ciidamadana aad baa la isaga wareystay sidii wax looga qaban lahaa. qodobka kale wuxuu ahaa in dhalinyarada gobolka kan gacan laga siiyo dhinaca ciyaaraha oo loo qabto tartan ay ku midaysan yihiin guud ahaan degmooyinka gobolkan uu ka kooban yahay 7 degmaba in loo qabto tartan oo dhalinyarada lagu dhiirigeliyo laguna garab istaago sidii koob degmooyinka gobolka mudug ay ku tartamaan loo dhigi lahaa taasoo qayb weyn ka qaadanaysa dhalinyaradana faa'iido u ah oo dhiirigelinaysa isdhexgalka bulshada iyo horumarka iyo nabadgelyada intaba xoojinaysa. qodobadaas ah qodobada laga hadlay runtii dhamaantoodna waa la isku afgartay gudoomiyaha gobolka Faysal Sheekh Ali Jibsade iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka iyo waxa kale oo joogay taliyaha qaybta taliyaha aaga gudoomiyaasha degmooyinka dhamaantood waa joogeen isku duwayaasha wasaaradaha kala duwan ee gobolka baana ka wada qayb galay barnaamijkaas aad iyo aad baan mahadsantihiin intaas waa shirki maanta.